waxaan rabaa maanta inaan halkan aan dadka Soomaaliyeed uga sii daayo damaanad qaad waxaan damaanad qaadayaa ciidanka ama ballan qaadayaa ciidanka shaqaalaha dawladda iyo cid kastoo Soomaali ah waxa la yiraahdo ka aarsi siyaasadeed inaanu dalkan ka jirin عدوى إيجار رأي الدواناي أنتوا كدعي لليه أو لبيكسنايو أو لبض بكعيو أو سيداس دراد الله عقابة يا أما الله وحينا يا أما الله الريح يا هي حكم كأن أنا جاميها كأهي هو السيس ما كان عدون تدي الله يراه عارف أمريكا ضدك الصوماليات لبعتها كالجارتي قلب حمان تدعي إسرح ريح الدعي maamul goboleedyada iyo waxa adduunyada iyo dawladda siyaasadeeda la iska hor keenay oo dhan inaan ka gudubnaan rabaa oo biri qabano beejka shalay intaan iska laabno ma iloobi karno wixii xuna shalay dhacay laakiin waa cafi karnaa waana cafinaynaa ilaahay idinkiisa waxa san oo la rabana bari aan sameeynaa si aanan uga mashquulina wixii hor beejka hore intaan iska warsanaan laabaynaa waa beejkaas iska rogaynaa bari aan hor taalo haddii aanan ku mashquulina برينا شالي نقوني بريد دبنا شالي نقوني سنة كدبنا سنة كهرو نقونيا وقت نوما هاينو أو نجمع قاضو إن الشالي بري إن الشالي نجمع نقطه أنا كفى إيدي سنة وقت أوما هاينو سيداس درادي دتك الصوماليات ملك أي جوجان وحن لا هاي قلبي جينا واسعية أو قلادة إن ليس سامح قفك دم بجلي قفك قف وحكب إياه قفك قف ديلي أو كريمنال قفك قف هنتي كدعي هايسته هذا تاس قانون هذا الكوجي يلا قوانين تسوحي كتيران قبنا لكن السياسة ده حق التاجر سنة يحقوا كسور جدي يحقوا هايستي درادي محوها هاي لا سوء عقاب ماي ولا سوء دبكع ماي هدي الليرة دقن كأرسجا كمد معها دقن مدى إسلامي جا في عن dhaqanka aarsiga kamid maaha dhaqannimada Soomaalida ee fiican maadaama aan ummad Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslim aan nahay waxaan diinta ku saxsanayn dhaqankeena kuma saxsana iskama aarsanayna hadii allira insha Allah walaal kasto Soomaaliyeed oo aan dalkan qof walaal ah oo kale aan dambi ka gelin dhibaato kale oo qaanuunka la xiriiro baaba shakhsi ka iimaanay aanan iimaan shalay oo aniga iga soo horjeeday iyo daraada waxa sidoo kale dadkii siyaasad awgeed shaqada dawladda looga eriyay siyaasad awgeed dadkii shaqada dawladda looga eriyay kuwii siyaasiyiinta ah ee ilmahooda iyo walaalahooda iyo qaraabadooda shaqada looga eriyay siyaasiyiin waaye waana hebel ka ra'yi duwan yihiin awgeed shaqadooda waa lagu soo wada celin hadii aan yiraahdo waa cusub iyo bog cusub iyo meel cusub waxaan ka soo horjeedaa oo xoog iyo aqli intaan leeyahay isugu geey doonaa dadka Soomaaliyeed inay maskaxda xor ka ahaadaan oo aanay cabsanin haddaad hadasho oo ra'yigaaga aad dhiibato wiilkayga shaqada laga eriyaa walaalkay la soo raacdaynaya ana la i waxaynaya maya ma dhacayso cidii sidaas horay loogu suubiyayna waana ka tacsiyeynayna dibna waa u soo celinaynaa wixii ay iyo booskii ay lahaayeen ay saxda ku ahaayeen ee sababtaas siyaasadeed awgeed looga qaaday ma aqbalayno in dadka Soomaaliyeed dawladnimada iyo siyaasadda oo ah danaha ummadda Soomaaliyeed in looga shaqeeyo dadka Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed in maxaan ku yiraahdaa wax looga hadleeyo maya ma aqbalayno waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gunaanado mahadnaq aan idin mahadnaqaayo bogaadin aan dadka Soomaaliyeed oo dhan bogaadinayo adkaysiga ay u soo yeesheen maanta meesha la joogo in la gaaro 15 May waa maalin taariikh ah waa maalin ku astaysan
wanaagga dhallinyarada Soomaaliyeed ay dalkan ka soo qabteen iyo riskiga khatarta ay u qaateen haddana waa maalin kale ku astaysan wada dhib badan oo gadaalihii daba aad iyo aad u dhib badan oo soo marnay meeshii ay ku dhamaanaysaa dii alla yiraahdo sida dadkii badnaayay ee sharafta leh ay halkan joogay ay ku dhawaaqeen baarlamaankeena federaalka ee Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa ummadda inuu u gaaro go'aan dhaxalgal ah waxaan ku soo gunaanadayaa mahadnaqa iyo hambalyada iyo bogaadinta kadib Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah aad iyo aad u mahadsantihiin